Founded just 4 years ago, the Liu police now form the backbone of the region's security apparatus and have replaced the Ethiopian army in fighting the rebels. Within a short period, we've had big successes. We have weakened our opponents. dirqamanu taate akkaan afaan isaan beekanitti deebii kanninu dirqamanu taate akkan quba qabaatin kabajaadhaan ilmaan Oromoo bakka jiran hundaa'uu ibsinu jechuudha. Jaalala osoo hin taane dirqamanu taate afaan warraaqa isaan beekan deebii gahaadha yookaan quubsaadhaan kannu. Tole itti fufuu dandeessa. Halkan waxa aan rabaa inaan jawaab yar oo kooban ka bixiyo nimanka isku sheegay inay mas'uul ka yihiin kilka shanaad gubay calamada Oromiya iyo Amaarada. Aniga say ila muuqato aqoon dheer uma laha calankan ay gubeen iyo ka kale gacanta ka hayeen kala duwanaanshaha kala duwan yihiin. calankii Etoobiyana way gubeen kii Oromiyana way gubeen. waxa ila muuqata aniga shakhsiyaad calooshoodu shaqaystayaal oo si gaar loo soo diray in fiid loo soo sameeyay telefoon loo soo sameeyay iyagoo loogu caburinayo guriyaha ay ka dhisteen magaalada Jigjiga haddii ay sameyn waayaan in guryaha Jigjiga laga qaadi doono. cabsidaa darteed in ay ahaayeen dad waxaan u sameynay aysan ahayn dad ay run ahaan waxaan ka yimaadeen. waxaan halkan fariin culus aan u diraya dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Oromadaba. shakhsiyaadkaasi Soomaalina ma matalaan Oromona wax ma yeeli karaan. ujeedadaydu in aysan isku dhacimaan labada qoomiyad dhexdooda maadaama calankii Oromada la gubay ummadda Oromaduna ay kacdoon kala sameyn doonto oo jawaab celin samayso. si jawaab celintaasi aysan u ibin waxaan ka doorbidnay inaan jawaab afka ka dhiibno labada ummadood aan uga didno in waxaan uu yahay isku dhufasho labada qoomiyad la isku dhufanayo oo ay adeegsanayaan siyaasadda gumaysiga ee qaybi oo xukun si labadoodu iskugu dhacaan ugana faa'iideystaan. labada qoomiyoodba waxaan fariin culus u diraya inay gacmaha isqabsadaan. shakhsiyaadkaas calooshoodu shaqaystayaasha ee telefoonka lagu soo amray ayna waxba inaga qaadi karin maamsinahay. calankaa maanta aad gubteen maalin aan maanta ahayn baad ka sheekayn doontaan. weliba idinka oo jooga dal xor United States dal xor dimuqraadiya xaq baad u lahayd inaad afka ka hadashaan. xaq baad u lahayd waxaad doontaa dhihi kartaan. laakiin xaq umaydaan lahayn calan ummadi leedahay inaad gubtaan. weliba idinkaga hari mayno calanka aad gubteen United States dhexdeeda idinkaga hari mayno. maxkamadna waan soo taagi doonaa hadday doontaa gaarto. waxaan iyadoona kusii dari doonaa group kaloo isaguna waxaa jira ee barnaamij sameynayay bal kliibkan waad ila daawan doontaa. የተከበራችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን የለም በዓለም ያላችሁ ከዚህ ሰላም እንላለን። እኛ ከሃኒ የምትባል ከተማ ወደ ኮፐንሃገን ዴንማርክ ዋና ከተማ መንገደኛችን ወደዛ ለመሄድና ሰላማዊ ሰልፍ እዛ ለማድረግ እና ለማሳየት የኛ መንግስትና የኛ ህዝብ ለመደገፍ እንግዲህ ወደዛ መሄደን ዛሬ እናሳያለን። ግንቦት ሰበንና ጸረ ሰላም ኃይሎች እኛ በፍጹም
ففصم عنك أبلم إنجري يتلانت ناو سرعات يدرجو سرعات إنيا بورزاين دملسون ففصم عنك أبلم يوم الله وتوبيا هيس كدبوب كتمين كدبوب كميراب كمسراق يا عند أباتنا يا عند الناس الجوجنن منهم يميا كافلان نجار يلم إن ذي صار سلام هايلوش ينيا وطاتوشن آية هاللهم أنك أبلم إندي نودالن هسباتين منجستاتين نودالن إنيا سلام أجراتين فسلام إننا بإرجت مدقة فلبين أهونم لعبد الله ستالو بإنجليزي نياندينا. Thank you very much. Today we are traveling from Ulan to Shilan. We are Ethiopian people who have come together to support our government, elected legitimate government. The current government of Ethiopia is not yesterday of Ethiopia. It's not Dergi, it's not Haile Selassie. It's elected democratic government. Those who are making puppet against the government, they want to bring back Asaba and Haile Selassie and the dark days. And we remember, I will not allow that. Thank you very much. أهونم تنش لمسالة يسمالة كل إرس بيساتنا من استدادر وزاري يملكام استدادر يليمات يسلام إتقدر سرال إثيوبيا بمن برسالج يعني نجري كأنيا مانم لوست أنك أفرم إنيا بملوك بعند لايك أومن إسكا مجرساتين درس إنيا بعند لايك أومن عند لتاتين إن سايالن مقام اللبن وسايال اللبن سر سلام يودم يودم سلام يودم thank you. Okay, nimankaas maxay u muuqdaan niman argagaxsan oo cabsi ku dheehan tahay wajiyaduna ay toos u muuqan bas bay saaran yihiin waxay leeyihiin banaanbax baan u soconnaa waxaan ka soo horjeednaa ururada macaaridka dalka iyagaa leh inaad taamintaan weeyo marka hore dalka iyagaa leh xaq bay u leeyihiin in ay dad ummadda shacabka kacdoonka wada xaq bay u leeyihiin inay taageeraan kacdoonkan Ethiopia ka socda maaha kacdoon qabili ah maaha kacdoon ahli ah waa kacdoon wadaniyadeed ku dheehan fundamental challenge ujeedo ay tahay in gumaysigu uu dhaco qof kastaana uu ku noolaado xor Soomaalidu xor ku noolaato Amxaaradu xor ku noolaato Oromadu xor ku noolaato maaha ujeedo qaybna ay cabursanaato qaybna xor ahaato waxa ka cadaynaya halkan labada ummadood Ogaadeniya iyo Oromiya ujeedada ay groupkan ay wataan isku dhac labada qowmiyadood ay isku dhacaan inaad ka fogaataan wax alla wixii carqaladeyn kara xiriirka dheer ee halgameed ee noo dhaxeeya saasi daraadeed hadalkay waxaan ku soo gunaanadayaa labada qowmiyadoodba inay ka fogaadaan wixii isku dhac keenay groupkan caloosoodu shaqaystayaashana waxaan u sheegayaa in dawladda hadda waqtigeedu jiro uu dhamaaday annagu uma aqoonsanin dawlad waxaan u aqoonsanahay shifto meesha isku timid mafia groupna jazaa'igeeda waan siin doonaa wadankana waan ka xoreyn doonaa cidna aanu kala tashanina ma jirto cid aanu uga abeeyrayna ma jirto laakiin shacabku nabad ku noolayaan kacdoonka waxa wadana waa shacabkii dalka lahaa shacabka dalka le baa kacdoonka wada cid hor istaagi kartana malaha haddii aad joojin weydaan hagardaamadan aad wadaan waxaa idinku filan one day hal maalin oon kaaramardo joogsano oo gaariga soo galay baan joojinay intaasaa idinku filan ma qaadi kartaan hal maalin oo Oromiya xidhan taxteeda أيها
sababtaan saa u leeyahay waxay tahay marka aad nu ka ficil qaadano maadya gruubkan ka taliya jigjiga laakiin ugama golin ama dan ugama lin shacabka inay dhibaato ku timaado waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta u joogaan aan fariin u diranaya inay hurdada ka kacaan waayo Ethiopia way kala guurtay qof walba gobolkii u lahaa ayuu u ordaya waxaan idin sheegayaa in ay cidla ku dhici doontaan barita kamaal waayo qof kasta wixiisa markuu gacanta ku dhigo idinku cidla ku dhici doontaan si aysan taa u dhicin waa in aad garab siisaan jabhadaha hubaysan ee ka dagaalama gobolka Ogaadeniya si dawlad madax bannaan oo Ogaadeniya la yiraahdo aad u hanataan sidaas daraadeed shacabka fariintaas aan u diraya shacabka Oromia waxaan la istajiya calan la gubay waxyeelo weyn maanta inuu keen ka ma jirto in kasta dhibaato haddana dadka gubay waa Mafia Group calooshoodu shaqaystayaala muwaadiniin maaha muwaadinku kuma dhaqaaqo falalka shacabka iska hor keenaya shacabka Oromia intaasan faraya bal waxaad la fiirstaan gruubkan calanka gubayay say wax u gubeen kilibkan fiiriya waxay u muuqdaan nimankan calanka gubayay niman waxaan ay gubayaan ba aqoon aan u lahayn laba calan bay isqarabiyaan labada calan ba waa Ethiopia midna way gubeen midna gacanta ku hayaan uma muuqdaan dad Ethiopiana waayo calaamadu waxay iba ma kala garanayaan hadday aqoon leeyihiin labadan calan midna mayn hayeen midna may gubeen kan Oromia garanay waa calankii onaag biira waan maqlaynay oo wadiin muuqata waxaan se qabaa shakhsiyaadkaas inaysan ahayn shakhsiyaad Ethiopiana shakhsiyaad Ethiopiana inaysan ahayn ay yihiin shakhsiyaad gaara oo si gaara loo soo abaabulay inay ka qayb qaataan isku dhufashada labada qowmiyadood waxaan ka dardaaraynaa inay ka fogaadaan wax alla wixii isku dhacitaan keenay gruubkana waxaan u sheegayaa haddii aa wax isla haysaan September 29 Valentin waa Washington DC haddaad calan gubteen haddaad banaan samaysaan waxaan noo balan Washington DC السلام عليكم ورحمة الله. أديكولان إتفوق. أيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waxaan fariir meesha uga farayaa dadka aanu jaarkan nahay jaarka ilaahina wuxuu jecel yahay jaarku inay ixtiraamaan isxismeeyaan
xishmaa ka dhaxaysa jaarnimana wax ka adag ma jiro haddana waxaan fariin meeshan uga dirayaa liyu booliska waddankayga jooga waddanka imika loogu sheego magaca Ethiopia iskuna xidhiir leeyihiin kuwan dibadaha imika isku sheegay inay banaanbax ka sameeyaan saddex calana gacanta ku haystaan saddexna ay kala tahay midna kii xabashiga midna ay tahay kii oromada midna ay tahay kii waxaan ku yidhaha tigreega kii tigreegana gacantay ku haystaan kii on eleftayo kii xabashigana way gubeen waxaasna wallahi aqli daraan u haystaa haddii aqli meesha ka jirto ay dib taariikhdooda waxay soo dhaafeen soomaali ahaanna dib uga eegaan waxaba may sameeyeen anusaan ugu fikirayo laakiin cid walba fikiraantiisu isku mid maaha soomaali dhannaanna la iskuma dari karayo dadkan sameeya waa dad yaroo cirkiisa oo keliyaata ka fikiraya hadduuna cirkiisa ka fikirayn gumaysiga soo dhaafay iyo xaaladday soomaalidu soo martay ayaa dib uga fikiri lahaayeen maanta dadka Ethiopia ku dhex nool kililshanaadka haddii oromadu gumaysiga ka hoos baxdo dad iyaga dib u soo noqonayo iyaga gumaysanayana ma jirto fikradaasina dadka oromada kuma jirto dadka oromadana ilaa intaasoo sano way wada degaya dadka wanaagsanna ma jiro gumaysiga haysta ayaa iyaga cadaadiyey oo jaarkooda u muuqiji waaye mooyaane dad xumaan dadka soomaalida u haysta ma kililshanaadna way isla joogaan wayna isla joogi doonaan wayna isla degan yihiin wayna isla deganaan doonaan qof meesha ka saaraya ma jiro walaaladeeda soomaalida ma odhanayno marna waxaas xurriyad baanu baxnay waanu xurriyownay ama sidaa nooga baxa qof la gumaysanaya ma jirto haddii oromadu xurriyowdana taas ahaanteed waxaan uga farayaa meeshan inay dadkan cirkiisa bogtaha ee dantiisa keliyaada ka talinaya dadka soomaalida maskax uma noqon karayo anigu laakiin waxay ii muuqata dadka dumarka ee cid walba nimankaa imika calanka gubay ya maanta mid walba ku naag qaba ku naag la dhashay ya cid walba dumar baanu nahay waa dad rag dumar la dhashay ama dumar ay dhaleen waxaan taa uga odhanayaana caruurta oromada maanta gumaysiga na haystaa siduu u madhinayo siduu dhiigooda dhulka ugu shubayo way arkayaan walaal waxaanu leenahay dadka dumarka soomaalida ee raggaas aqoon iyo la dhalashaba la leh inay dadka cirkiisa bogtaa inay nagala hadlaan ee soomaalidoo dhan iskumana dari karayno taas awadeed baan u leeyahay sidaas inay la hadlaan dadkaasi cirkaasi maalin aakhirana uma raacayo adduunna waxba uguma tarayo hadduu ilaahay idmo annagana gumaysagaa waa ka bixi doonaa ilaahay baa na gargaaraya qof ilaahay taageersadana meel alla meel uu baahan yahay allah kula jooga taageerada allaanu haysanaa laakiin waa inaanu istaageernaa sida jaarnimo iyo maaragtay xigashada waddankaan isla leenahay taas inay dadkaas soo gobaangabinayso ay waxaan ku yidhi waxaanay uga jeedaan ujeeddadoodan dib uga noqdaan ay maskaxdooda ka shaqaysiiyaan ayna waxaana dib ugu noqonin ayaan u faraya farriintaydu intaas bay ku taagantay